Mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Eidsvoll ee bariga dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay dhac loo adeegsaday qori caaradii, waxaana lagu soo waramayaa dhibanaha guriga la dhaca ku noolaa in lagu handaday qoriga, sidoo kalena jirdil iyo dhibaatayn badan loogu geystay inta aan la dhicin oo waxyaabo badan oo muhiim u ahaa gurigiisa laga qaadan. Booliiska ayaa xaqiijiyay dhacdadan, waxa ayna ku waramayaan in lagu soo wargeliyay xilli saq dhexe ah oo 4tii habeenimo ah, taa oo ay sheegeen in si degdeg ah ay u gaareen gurigan uu dhacu ka dhacay. Waxayna intaa ku waramayaan booliiska in dhibanaha inta aan la dhicin loo geystay jirdil aad u xooggan, waxayna booliisku intaa ku dareen in dhibanaha loo qaaday isbitaalka qaybta xaaladaha degdega ah, walow aysan qeexin heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray dhibanaha gurigiisa lagu dhacay. Arrintan ayay booliisku sheegeen in ay baaritaan ka sameynayaan, waxa uuna ku waramayaa taliyaha howlgallada booliiska Rune Isaksen in ay arrintani baaritaan ka wadaan, isagoo sheegay in dhibanaha la dhacay ee mid ka mid ah burcadda dhaca u geysatay ee aqoon hore ka dhacaysay, taa oo uu sheegay taliyaha inaysan khatar guud ku ahayn guud ahaan dadweynaha ku nool degmada Eidsvoll oo aysan ahayn shil wadareed ama dhibaato guud ahaan dadweynaha ku nool degmadaasi. Booliiska ayaa sheegay in ay hadda baaritaan xooggan ka hayaan gurigan oo ay sheegeen in qalab badan iyo waxyaabo badan oo muhiim ah laga qaatay lagana dhacay. Waxa ayna sheegeen in ay hadda ku daba jiraan soona qaban doonaan burcadan, cadaaladana ay horkeeni doonaan. Halka warka kuwiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.